gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solje gobolka Awdal Hashim Sheekh Cumar Good ayaa maanta shir jiraayad ku qabtay mid kamid ah hoteelada ku yaal gudaha magaalada Boorama wuxuu ku bayaamiyay hadalkii shalayto ka soo yeedhay qaar ka tirsan warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha guud ahaan gobolka Awdal inay ahaayeen mid xaq u lahaayeen kuna taageeray hadalkii ka soo yeedhay shalayto sidoo kale qaar kamid ah warbaahinta kala gadisan ee ka howlgasha gobolka Awdal ayaa iyaguna geesta kale waxa ay sheegeen inay xaqii ay ku lahaayeen ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solje ay ka waayeen taasna ay sababtay inay ka goostaan guud ahaan ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solje sidoo kale waxa la meeylaawaa shirweynihii shanaad ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solje oo ahaa kii ugu dambeeyay lagu kala kacay lagu kala qaybsamo laba garab oo ahaa mid aysan ka dhex muuqan guud ahaan warbaahinta kala gadisan ee ka howlgasha gobolka Awdal waxa la meeylaawaa in suxufiyiinta ka howlgasha gobolka Awdal ay yihiin kuwa aan tiradooda la soo koobi karin balse ay ka waayeen ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solje maamuustiya sharaftii ay ku lahaayeen guud ahaan warbaahinta kala gadisan ee ka howlgasha gobolka Awdal hadaladoodina waxa kamid ahaa arinta shalay shirka jiraayad ka qabteen suxufiyiinta gobolka Awdal ee kaga hadlayeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solje saxafiyiinta gobolka Awdal ee hadlay xaq ay u leeyihiin inay ka hadlaan wixii ay dhalin iyo tabasho iyo maaragtay oo arkaan khalad inay soo jeediyaan wala mid haboon in waxa ay ka cabanayaan ururka saxafiyiinta ee Solje uu saxo waxay kamid ahaayeen saxafiyiinta hadashay qaarkood kuwii u diiwaan gashanaa ururka saxafiyiinta ee Solje gobolka Awdal ee gudoomiyaha u ahay xaq bay u lahaayeen inay ka qayb galaan shirka ka dhacay Hargeysa ahaantii saxafiyiinta gobolka Awdal waxaan leenahay haddii aan guud ahaan magacooda maanta aan ku hadlayo waxaan leeyahay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ma wada matalo guud ahaan bahda saxaafadda Soomaaliland intiisa badan waxa uu ku xirxiran yahay magaalada Hargeysa iyo agagaarkeeda intaasi oo ayna soo dhaafin ilaa 12 sanadood muddo ayuu jiraa muddadaas 12 sanadood ee uu jiro suxufiyiinta reer Hargeysa uu hogaaminaysa bahalka haysatay iyaga gudoomiye ka ahaa iyaga ku-xigeen ka ahaa iyaga xogeeye ka ahaa suxufiyiinta kale ee maxaan ku dhahdaa magaalooyinka kale ee Soomaaliland ama gobolada ku dhaqanay masaakiin ku dulman bay meesha mar walba ahaayeen Jaamac Xuseen Jaamac Somaliland Space Channel Boorama